wasiirka gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa ka hadlay dagaalkii cuslaa ee maanta ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood gaar ahaan aagga xerada Gooja Cadde. Wasiir Caateeye ayaa sheegasho la yaab leh ka soo saaray dagaalkaasi maanta ka dhacay duleedka magaalada Laascaano. Waxa uu shaaciyay in ciidamada Somaliland ay ka hortageen weerar laba jiha ah oo lagu soo qaaday sida uu sheegay. Wasiirkan ayaa ku eedeeyay dagaalka maanta ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood in ay soo qaadeen ciidamada Puntland oo kaashanaya koox argagixiso ah iyo kuwa nabadiida sidoo hadalka u dhigay. Ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaga oo ku sugan aagga bari fariisimaha Gooja Cadde waxaa ku soo weeraray ciidamada maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed ayaga oo ka soo weeraray laba jiho ayuu yiri wasiir Cabdiqani Caateeye. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidanka Somaliland ay dagaalkan ku qabsadeen 15 qori, laba gaari oo kuwa dagaalka ah, iyo sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen 20 maxaabiisa. Sida caadada ahayd ciidamada Somaliland waa ay ka guuleysteen cadawga waxayna ka qabsadeen saanad military, laba gaadiid oo nooca dagaalka ah, waxayna qabsadeen 15 qori iyo in ka badan 20 maxaabiisa ayuu mar kale ku celiyay wasiirka gaashaandhigga Somaliland. Ugu dambeyntii wuxuu hambalyo u diray ciidamada militariga ee Somaliland ee haatan ku sugan jiida hore ee dagaalka ee wali uu ka socdo ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wuxuu yiri waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo u rajaynayo mar waliba inay cadawga ka guuleystaan. Wuxuu hadalkiisa soo raaciyay in ciidanka Somaliland ay garab taagan yihiin. Dhinaca kale saraakiil u hadashay Khaatume State ayaa shaaciyay inay qabsadeen gaadiid dagaal sidoo kalena ay la wareegeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidanka militariga Somaliland. Dagaalka waxaa la soo sheegayaa in dhinaca SSC ay iyaguna guulo sheeganayaan, maxaabiis badanna ay qabteen soona bandhigeen maxaabiista ay qabteen oo ciidanka Somaliland ahaa, kuwaas oo ay muuqaalo ka soo duubeen baraha bulshadana lagu arkayay iyagoo qabiilkooda weydiinaya, gaar ahaan qabiilada marka Somaliland la dago haybta ah hoos u sii weydiinaya. Muuqaalada la baahiyay ee baraha bulshada soconayay waxaa ka mid ahaa niman da' oo muuqaalka dhexdiisa lagu weydiinayay cidda uu Somaliland hayb ahaan ka yahay, isaaq cidda uu ka sii yahay, iyo sidoo kale sababta halkan keentay. Si kastaba muddo ka badan bil waxaa Laascaanood ka socda dagaalo qaraar, waxaana lagu guul daraystay in laga sameeyo xabad joojin kadibna ay wada hadlaan labada dhinac. Inkastoo warar madax bannaan oo rasmi ah oo labada dhinacba ka madax bannaan aysan jirin, haddana waxaa maanta duleedka Laascaanood ka dhacay dagaal aad u xooggan kaas oo labada dhinacba dhimasho iyo dhaawac fara badan soo kala gaarsiiyay.